Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada channelkeeni Axsaab Production oo aad kaga barateen casharo ku saabsan designinka, editinka iyo weliba computingka. Waxaana socday koorsadeeni Photoshop. Waxaan maanta qaadan doonaa casharkii shanaad waxaan ku baran doonaa la yiraahdo eyedropper tool iyo weliba labadaas tool oo muhiimka ah qaadan doonaa insha Allah. oo runtii aadka muhiimka noogu ah rid eye eyedropper labadaas qaadan doonaa insha Allah. waana is ag dhow yihiin oo laba waxa waaye iswa runtii qaabka loo isticmaalayo iska ag dhow. Marka insha Allah saan u aragno ama aan u fahanno waxyaabaha ay qabtaan labadan shay ama labadan tool. insha Allah waxaan soo gelinaynaa sawir marka hore open file leh, kadib sawir halkan ka soo geli. Okay, marka sawirka waa soo gelinay. Marka insha Allah waxaan ka bilaabaynaa eyedropper tool ka bilaabaynaa. Eyedropper tool wax kale ma ahan waxaad qaadaysaa oo kaliya point ama inaad kale halka cabirka iska yaray point sample. Yes, sidoo kale halkan sidoo kale waxaa ka dhigtaa current layer. Okay, waxaa kusoo haran la yiraahdo color sample. Color sample waa soo jeedin saad fahmayso waa colorka qaado. sida waxaa lagu ogol yahay saddex jeer ee lagu ogol yahay saddex color oo kala duwan soo qaadato. Marka waxaan filaynaa fahantay saddex color halkan ay soo muuqdaan geeskan uu soo bandhigaya wixii information. waxaa ku xiga ruler. ruler taqaana waa mastarad ama cabirkii waa. waxaan filaynaa fahantay. Okay, waxaa noogu xiga waxaa la yiraahdo note. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan sawirkan ayaad ka shaqaynaysaa. marka sawirkan ka shaqaynaysid sawirkii ma aadan dhammaystirin, marka waxaa laga yaabaa qof kale inuu computerkaada furo oo isticmaalo sawirkiina uusan macnaha edit garayn ama qof shaqo ka dhexeedo kale macnaha shaqo ka dhexeeda hal computer ku shaqaysiin. marka sawirkan ma aadan dhammaystir shaqadiisa, marka waxaa rabtaa in la dhammaystiro. marka waxaad isticmaalaysaa note-kan oo saaraysaa meesha. marka qofku soo galo isla markii uu arkay note-ka oo ku dhufanaya oo akhrinaya. halka waxaan ku qoraa la yiraahdo sawirkan ma dhammaystirna ayaan ku qoraya. markaan ku qoro waxaan saan yiraahdo marka qofku soo galo oo laba jeer uu click siiyo wuxuu arkayaa note-kan ama qoraalkan aan u reebay. marka waa way fudud. waxaa ku saaran la yiraahdo count. waa kii hadaayo kaleeto aan ku sheegayay kalarada qaadanayay ilaa iyo selection aad ku samayn kartaa oo qaab selection ahaan u isticmaali kartaa. markaas waxaan filayaa inaad fahantay. badanaa useful maahan. insha Allah waxaan muhiimada saari doonaa barnaamijyada usefulka ah. kan oo kale isna kaga dhow yahay waa spot healing brush la yiraahdaa. ana waa brush taqaan brush waa nadiifin soo ma brush soo taqaan waa nadiifin. marka wuxuu nadiifinayaa ama ka saarayaa jirka lagu nadiifiyaa ama meelaha madmadowga ama waxyaabahaas lagu nadiifiyaa ama kalarada aan kalarada arkaysa hal sawir oo dhowr kalar ka noqonaya. marka kuwaas oo kale nadiifiyaa soo jeedid meeshaan kalar kale oo ka dhiga awal kalar hore u haysta marka kii markuu bedelay. sidoo kale waxaa ku xiga healing brush ku xiga waa isna la mid waxa waaye oo kaliyahay oo brushki. sidoo kale waxaa la yiraahdo pass tool. sidoo kale isagana kan waa ka duwan yahay ka duwan yahay selection aad samaynaysaa. kadib waxaa leeyahay control alt kadibna meel kale aad geynaysaa. marka meel kale waa meel aad hadda soo kan waxaan u ekaysiin leeyahay meeshaan waa ekaysiina. marka ujeedaa selection saaraysaa. marka select saarto kadib waad qaadaysaa waxaad geynaysaa meesha aad ekaysiinaysa. halkan soo aan ka dhigo. okay, kadibna okay xalwa waxaa ku saaran la yiraahdo kan wax gudbayna kan useful lama isticmaalo red eye tool.
red eye toolka waxaa loo isticmaalaa hadda sawirkan saa uga jeedid indhaha sawirka ama qofka sawirkan ka muuqda indhihiisu waa guduud, marka guduudka sidaan uga saaraa waxaa isticmaalaysaa red eye dropkan, red eye toolkan. marka isha ayaa dooranaysaa maadaama inaan ka dhigno madow ka dhigno, marka waa ku celinaysaa dhowr jeer, hal mar kaliya ma noqonayo, hal mar kaliya madow ka dhigi kartid, marka ayaad dhowr jeer ku celisaa waqtiga u baahan yahay. insha Allah waan filaya inaad waqti ku bixi doontid si uu sawirkaad u noqdo mid runtii useful ama qofkii arkaa uusan uga caajisin. soo jiidka nadiif noqday, midkan kalena sidoo kale ku samey, ku celceli ilaa uu ka noqdo madow. waa muhiim inaad ku celiso si uu madow u noqdo. waxaan filayaa in labada indhoodba ay noqdeen madow, inkastoo aan filaya inay zaaid madow noqon, laakiin waqti ay u baahan yihiin inaad ku celiso, waqti siido. aniga hadda waa sambal ama waa cashar aan ku sameynaya, aan ku tusayo sambalka qaabka loo sameeyo, wixii naash ama qurxin adee ku jirtaa. marka waxaan filaya inaan ka faa'iidaystay labadan barnaamij. insha Allah casharkan iyo casharka waxaan inta ku kulmi doono waa Axsaab Production oo idin leh sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.